gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale iyo wafdi oo hogaaminaya oo howlo shaqo u joogay Buulo Burta ayaa magaalada Muqdisho soo gaaray waxaana garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin oo horkacayay la taliyaha sare ee madaxweynaha Soomaaliya injineer Cabdirasaaq Jalwa wasiir dowlaha wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga maamulka Hirshabeelle iyo maareeyaha magaalada Beledweyne gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa ka mahad celiyay soo dhaweynta loo sameeyay isagoo bogaadiyay wada shaqeynta maamulkiisa kala dhaxaysa madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya gabagabadii gudoomiyaha gobolka Hiiraan Mudane Cali Maxamed Caraale ayaa tilmaamay in howlihii shaqo ee uu joogay degmada Buulo Burta ay guul ku soo dhamaatay waxaan idinka mahad celinaa soo dhaweynta qaaliga ah iyo waqtigiina sharafta badan iyo sida aad ii karaameyseen ee maanta ugu soo dhaweyseen airportka international aadan cadde airport waxaan idin leeyahay waa mahadsantiin walaalayaal aad iyo aad boqolkiiba boqol maanta waxaan ka imid magaalada Buulo Burta oo aan maalmahan u joogay safar shaqo oo isku jira horumarin iyo dib u heshiisiin alxamdulillah meel fiican ayay noo maraysaa haddii aan lahayd maxaan ku raahdaa u diyaar garowgii isbitaalkii hooyada ee dhallaanka oo maalmahan aan ka diyaarinaynay degmada Buulo Burta ee ku saabsanaa mashruucii maxaan ku raahdaa marwada koowaad ee madaxweynaha ee ka hirgelinaysay mashaariicda dalka hooyada ee dhallaanka iyadoo ka fikiraysa caruurta Soomaaliyeed iyo haweenka Soomaaliyeed alxamdulillah waa ku soo guuleysanay waa soo diyaarinay dhulkii haddana insha Allah waxaan kula noqon doonaa dhagax dhigeedii waxa kale oo magaalada ka soo qabanay dib u heshiisiin dadka reer Buulo Burta oo maalmahan runtii xoogaa yaroo mugdi ay ku kala jireen oo haddii aan la xagga maamulka iyo haddii aan la xagga community mashkooda nool iyadina waan soo dhameynay khilaafkii jirana waan xalinay waa la fariisanay waa dhageysanay waan fahamnay waxyaabaha meesha ka jira wax kastana sidii ahaayeen ayaan u xalinay Maxamed Axmed SNTV Muqdisho.